waxaan u wadnaa bakooladii nabadda si ay nabadgelyo ugu guuraan waxaana u diyaarsan beebihii colaadda hadday door bideen dhowrkii maalmood ee u dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ku soo qulqulayay madaxda dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Buuhoodle kuwaas oo ka kala yimid deegaanada Soomaalida iyo dunida inteeda kale ujeedka ay halkan madaxdu ugu soo qulqulayeen ayaa daaran kulanka ay tashiga gobolada Sool Sanaag iyo Buuhoodle oo dhawaan ka dhici doona isla magaaladani daanta bari ee magaalada Laascaanood saaka waxaa si diiran lagu soo dhaweeyay Garaad Cabdirashiid Waraabeeyo oo kamid ah simada dhaqanka ee ka qayb galaya kulanka ay tashiga ee goboladani الحمد لله رب العالمين نسور تجليي كنا كان مناسبة قيمة بدنا نسقون لبعضنا إنه النبض قبنا أنت كذب وحن مهدو علينا إياه دتك قبل ده SSC ولا يتطوعات 6 كيلومتر نوجه ريميد ونقص دوائي سديران وهرنمالة ولاتنمالة وصومالنمالة walaalayaal sidaynu ognahay waxa ka taagan gobolladeena maaha wax inaga qarsoon iyo wax hore inaga qarsoonaatoona maleeshiyaadka Somaliland gobolkeena xoog ay inagu maqmuuniyeen inaguma qabsan dagaal ay inaga adkaadeen inaguma qabsan waxay inagu qabsadeen khilaaf dhexdeena waxayna ku baxayaan midnimo dhexdeena midnimadaasi maanta way muuqataa 15 sano kadib ilaahay ayaa mahad leh midnimadaasi way muuqataa waxa midoobay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa midoobay dadkaas ee gabdho iyo wiilalba oo kadib markii hoggaankii bulshadu hoos u foorarsaday hoggaankii bulshadu ku guuldaraystay inuu xalliyo dhibaatooyinka ka taagan gobolka ee amni xumada ah ee tala la'aanta leh ee horumar la'aanta leh markuu ku guuldaraystay waxaa dhiiri geliyey oo toosiyey dhallinyaro da'dooduna aad u yar tahay laga yaabeeba intii dhibaatoodu taagneed inay qaarkood dhasheen
aad iyo aad ayaan taama idinka madaxweynaya walaalayaal hoggaanka bulshadu waa afar waa odayaasha dhaqanka iyo culummada iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta afartaba waxaa toosiyey dhallinyaradeenna dhallinyaradu waxay indhaha u furtay odayaasha dhaqanka hadday ahaan lahayd isimo iyo hadday lahaan lahayd cuqaalba ayaga ayaa maanta isu keenay dhiiggaad shubteen ayaa maanta isu kaaya keenay dhallinyaradu waxay toosiyeen carabkii culummada casatadii iyo jeebkoodii oo ku dhiiraday inay xoolahooda ku bixiyaan gobonnimada dhallinyarada reer SSC ayaa baraarujisay oo waaqici ka dhigtay siyaasiga reer SSC meeshuu doona ha ku jiro meeshuu doonana ha ka shaqeeyo waxay bartay maanta in aan risiqa siyaasigu ku daadsanayn daarad reer kale dhallinyaradu waxay dirtay fariin ku wajahan dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo macnaheedu yahay in aan cid la maquunin karaa jirin cid loo talin karaa jirin inay yow tashato mooyaane waxaa la gudboon ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba in ay baraarugto oo ay iska kiciso cid kasta oo aan danaheeda ka shaqaynaynin ilaa raas kaambooni ilaa raas casayr ilaa looyo caddo ilaa banaadi kacdoonkan reer SSC ma ahan kacdoon sahlan waa kacdoonno hore u jiri jiray 100 sano ayaa ka soo wareegtay kacdoonkii kan ka horreeyay gobollada SSC laga curiyey 100 sano ayaa ka soo wareegtay haddana waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa dhammaantood waxaa isbaaro u dhigtay oo horjoogayaal u ah dad ummadda Soomaaliyeed dhammaan inay kacdo gobol kasta ka kacdo horjoogaha aan dadkooda ka shaqaynayn inay saxiyaan intaa kadib ka odayaal dhaqan ahaan waxaan wadanaa oo maanta wadanaa bakooradii nabadda waxaana diyaarsan beebihii colaadda Somaliland waxaa la gudboon in ay waa nagu soo guurtay nabay qabsan oo waana dul degtay inay naga guurto waxaan u wadnaa bakooradii nabadda si ay nabadgelyo ugu guuraan waxaana u diyaarsan beebihii colaadda hadday door bideen intaa kadib qorrax ayaa taagan tihiin waxaan idinka mahadcelinayaa isu soo bixiinnan aad iyo aad u qiimaha badan talo waa dhiman tahay waana la tashan doonaa isimo iyo cid kasta oo mas-uuliyad dhibeen ah waxayna ku soconaysaa rabitaanka shacabka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa mahadsantihiin